وهنون مسير كان هوعرون هدو عالكا أشري عدو ويدتيلو وبركاته soo dhawaada asxaabteeda qaaliga meel kasto aad joogtiin ku soo dhawaada channelkayga Cutiya channel fadlan hadaa ku cusub tahay subscribe saar gambaleelka furo like gare share gare aad iyo aad baa u mahadsantahay asxaabay soo dhawaada meel kasto aad joogtiin maanta waxa inay hayaa qiso xanuun badan sida awalba hore iiga barateen oo ayni soo gudbiyo qisooyinka ama qiso jacayl ha noqoto ama qisadu nooc walba noqotaa ama qiso qof si kale oo ugu dhacday ha noqoto maanta waxa inay wadaa qiso jacayl oo ku dhacday wiil walaalkeena oo igala soo wadaagay dhanka Facebook qisadu waxay u dhacaysaa sida tan asxaabay wiilku wuxuu ku bilaabayaa gabar ayaan jeclaaday anigoo dhiganaya iskuulka dugsi sare galaaska form 4 anoo dhiganaya ayaa waxay u dhacday qiso jacayl ama waxaan isbaranay gabar walaashay oo iskuulka markaas ayadu iskuul ma dhiganayn buu yiri waxay ka soo baxday jaamacad waxaan isku baranay meel kamida magaalada aan markaa ku wada noolayn muddo markaa isla soconay waxaan isku qaadnay jacayl waxaan isla soconay muddo 1 sano ah ka bacdi waxaa dhacday muddo 1 sano ka bacdi waxaa dhacday inaan gabadhii aan guur u soo bandhigto aan iraado walaal macaane waxaa rabaa inaan reer wada yagleeno sida u aragno ubad aan dhalnay oo aan reer wada yagleeno oo maxaa dhigi jiray aan mar walba labadeena agteena aan ka soo wada toosno gabadhi way iga aqbashay sababtoo ah ayaduna aad iyo aad bay ii jeclayd inkastoo ay gabadhaas ahayd gabar taajirad ah reerkeeduna yihiin taajiriin aniguna markaas aan ahay qof jacayl ku dhacay laakiin dhiganayo iskuulka galaaska ugu dambeeyay aan dhiganayo welina xataa aan jaamacad bilaabin sidoo kale reerka iyaguna ay yihiin reer danyar ah ama dadka oo faqiirinta ama lacag badan aan haysanin wuxuu yiri gabadhii way iga aqbashay guurkii waxay tiri waa inaad familkayga iga soo doontid hayaan ku iri waan ka aqbalay anigana sidaas oo kale familkayga ayaan la imaanayaa intaana familkayga la imaanin waxaan la kulmay familkeeda waxaan ka doonay gabadhaas aabaheed wuu isoo dhaweeyay si wuxuu ii soo dhaweeyay ay ku jirto macnaha waalidnimo sidii macnaha qof waalida uu qof u qaabilo ayuu ii qaabilay ka bacdi waxaa dhacday aabihii wuxuu iga wareystay waxaan qabto iyo shaqadaan qabto iyo familkan ka soo jeedo iyo nolosha ku nool yihiin waxaan uga waramay inaan wax shaqaa qabanin laakiin aan raga ahay gabadhiisana aan jeclahay iguna yahay reer danyar ah musaygu wuxuu dhahay aabihii uu igu qoslay waliba si kajan ayuu igu qoslay asagoo igu dhahaya aabo waad mahadsan tahay gabadhayda adiga soo doonto aad ugu sharaftayna waan kaaga mahad celinayaa laakiin gabadhayda kuma siin karo sababtu waxay tahay gabadhayda iyo adigu iskuma qalantiin gabadhaydu waxay ka dhalatay reer taajiriina waxa weeye ayaduna sidoo kale waa qof lacag lahoo shaqaysata bari horena jaamacad iyo waxbarasho iyo waxaas oo dhan bogotay qof oo leefarkeeda ah qof aan ahayna ma rabo inaan siiyo ama uu la wadaago nolol arrinkaas waxay igu noqotay buu yiri arrin aad iyo aad u xanuun badan waxaan guriga kasoo baxay anoo daaraa dhacaya ama meeshii ay gabadha iyo familkeeda igu qaabileen waxaan kasoo baxay buu yiri anoo daaraa dhacaya sidoo kale waxaan la xiriiray markaan gurigayga imaaday anoo barashirka i dhacsan yahay oo aad iyo aad u xanuunsanaya ayaan waxaa imaaday gurigaygii waxaan wacay jacaylkaygii oo aan rabay inay ila qaybsato dhibkayga waxay ii sheegtay maadaama ay inta ay soo doontay haddana ay familkaygii ii kaa diideen anigu wax jacayla inaanan iyo wax maxaa la dhihi jiray nolol dambe aan kaa leeyahay ma jirto waxaan kaloo go-aansaday bay tiri meeshaad ku nooshahay inaan ka dheeraado oo aan u wareego waddan kale wiilku wuxuu ku nool yahay waddanka South Africa marka gabadhii waxay tiri anigu waan siga tagayaa meeshaan sidoo kale aniguna meeshaasaan kula noolahay meeshaan ku noolayn markaas waxay go-aansatay inay iiga tagto igu codlayso noloshaas aabaheedna saasoo kale wuu ii diiday waxay go-aansatay inay meel walba oo social media aan ka wada xiriiri jirnay ay iga baloogto sidoo kale lambarkii tooska aan uga wacaya ay dansato ama ay meeshiiba ka saarto
aad iyo aad baan u xanuunsanayaa buu yiri qisada jacaylka oo aad ku xanuun badan ayaa igu dhacday waxaan idinka codsanayaa Soomaali weyn inaad ila soo talisiin oo aad iyo aad ila soo talisiin qisadeydana aad sii gudbisiin wuxuu si gaar ah ila hadlay aniga oo igu yiri walaale waxaan ka codsanayaa sida ay uga feejignaadaan dhalinyarada aniga oo kala gabar aan leefarkeeda ahayn inay ama la sheekaystaan ama ay nolosheeda u hibeeyaan sababtoo ah buu yiri aniga qalbigayga si dhaba ayaan gabadhaas u siiyay waxaan micnaha aan niyadeyda go'aansaday ama aan meesha ugu dambeysay gaarsiiyay inay tahay xaaskayga dhabta ah haddana maanta adduunyadan keligay ayaan ku ahay sida aan dareemayo sababtoo ah jacaylkaan u qaaday qof aan u qaadayo ma arkayo adduunkana ma ku arkinin intaa ayada ka dambeysay adigu ilaa muddo 1 sano ah hadda meelay ku nooshahay iyo meelay joogto iyo midna kama warqabo sababtoo ah meelaha kala xiriir jirana way iga baloogtay ama way iga saartay sidoo kale magaaladii aan ku wada noolayna way ka haajirtay oo way ka tagtay marka asxaabey qisadani jacaylka maanta wiilka walaalkeena uu nala soo wadaagay intaas ayay noogu eg tahay insha Allah wax inta dheeraada haduu nala soo wadaagana waa inii soo gudbinayaa sidoo kale adiga i daawanaya waxaan rajeynayaa inay ila soo wadaagi doontid qisadaada ama jacayl ahaato ama wax kale ha ahaato ama history aad rabtid bulshada in la wadaago ha ahaato wiilkaas magaciisa iyo meesha ku nool yahay nala soo wadaagay laakiin magaciisa iyo faahfaahin inta dheeraad ma soo siinin waxaan ka codsanayaa inaad insha Allah talooyin ku qanci doono aad ugu soo reebi doontiin dhanka commenti sidoo kale Facebook-gayga iyo email-kayga hoos yaalana aad ula soo wadaagi doontiin aad iyo aad baa u mahadsantiin asxaabteeda qaaliga waxaan rajeynayaa haddii ay tahay markii ugu horeysay aad channel-kayga daawanaysa inaad subscribe saari doontiin sidoo kale video-gan hadda ka heshay aad like gareyn doontiin aad iyo aad baa u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadiina iyo nooli kulantay bye bye